kusoo dhawaada kanaalka Maclaawis Mugi fadlan like saar subscribe saar share gareey insha Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الزكاة ودرس الدين لها مكبرا علم الحديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام قرهان كتاب فيها التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح وأنا درسي سدح هي كنتنات باب وجوب الزكاة هذا كان باب وجوب الزكاة زكاة واجبته إلى باب كيرواي الزكاة حق اللغة حل إلى التطهير والإصلاح والنماء والمدح waxtahirin iyo hagaajin iyo kubcin iyo ammaan baa zaka la yidhaahda xagga sharciga waa maal la bixinaayo badan laga bixinaayo oo ama maxaan idhaahdaaye maal kale laga bixinaayo weji makhsuusna lagu bixinaayo marka zaka lagu magacaabay maalka ayay tahirtaa anfooyinkiina maalka way ka badbaadisaa nafsadana bakhiilnimada ayay ka tahirtaa barakana maalka way u soo jeedaa saasaa zaka loogu magacaabo qofka bixinaayana ammaan bay u tahay bixinteeda waana axadu arkaan alislaam islaamka tiirarkiisa mid ka mid ah waayo qofkii diido oo zakada واجب ما أهان يراهدو وكافر بالله دتك زكرة إني بحيان كسر الجستان وعلى لدك على مايو قصب بذكر الله وقال يا هدي صدق على مني سيدا سيدنا أبو بكر بأوسمي رضي الله تعالى عنه مركا أحاديث أصاب سن زكرة وجوب كده iyo xoolaha ay ka waajibayso iyo noocyadoodii iyo nisaabka iyo qadarka la bixinayo iyo haddii qofka uusan bixinin cuquubada uu mudanayo arrimahaasoo dhan waxaan ka faa'iidaysanaynaa axaadiista soo socota can ibni cabbaasin radia allahu canhuma ana annabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga bacasa nabiga wuxuu diray mucaadan mucaad ayuu diray radia allahu canhu إلى اليمن يمن انتكاه أدري معاذ بن جبل بن نبي اليمن أدري سنة كالطرنات بإهاد قبل حجة الوداع أين إهاد وعكل لي سنة كسجالات آخر في سأي إهاد مركو النبي التبوك كصلاة إهاد وجدد مركب معاذ الودري يحيى إهاد إنه أهل اليمن براء قرآنك وإسلامك شرائع الإسلام قالنا وكان نقضى أيها بحضور صدقات كان وكسر كبضور زكوات سيدا صلى الله عليه وسلم فقال مركوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سيدا معاذ براي ترتيب الدعوة اللوجو وحيري أدعوهم أهل اليمن وغير مركبه إلى شهادة الله إله إلا الله وغير إله مويان وإله كلئن سنجير قريتي وأني أنيقنا رسول الله إنان أهي قريت ذا أوبوية فإنهم أضاعوا لذلك أرنك هديكو أطيعان وشهادتينك أيلي مادان فأعلمهم أشيك من الإعلام بالغا كين أشيك وبيسي أن الله إلهي قد افترض عليهم إنه كفر ذيالي 5 صلوات صلاة أو شنأ في كل يوم وليلة إنه كفر ذلك والتلاوة اللباطل فإنهم أضاعوا لذلك أرنك هديكو أطيعان فأعلمهم هدناء ويسي أن الله إلهي افترض إنه كفر ذلك عليهم أهل اليمن دشوت
sadaqatan zako inuu ku faral yeelay sadaqadoo fii amwaalihim hantidooda dhexdii ahaat sadaqadoo tuuqadu la qaadaayo sadaqada min aghniyaa'ihim kuwoodii tanaadkaa xaggii laga qaadaayo hadday mukallafiin yihiin iyo haddaysan mukallafiin ahaynba maxaa yeelay sabiga iyo majnuunka maalkiisaba sakada way ka waajibaysaa marka aghniyadoodii mukallafiin ha ahaadaano ama keyrkood ha ahaadaan wa turaddu la celinaayo sadaqada calaa fuqaraa'ihim fuqaradoodana lagu celinayo sadaqa noocaas ah in ilaahay uu ku faral yeelay u sheeg buu yidhi marka alaham falaham buu nabiga u bilaabay taasna marka waxa weeyaan dadka markii lala hadlaayo taladuf in lala yimaado maxaa yeelay dhammaan hal mar haddii laga wada dalbo nufuusta way didaysaa oo way cararaysaa axkaamta badnideedii bay ka cararaysaa marka shay-an fa shay-an iyo weliba alaham falaham in wax loo kala hormariyo midda kale dadka mustaxiqiinta oo sakada la siinaayo waa asnaaf 8 ah xadiidkan hadda fuqarada oo keliya ayuu sheegay wax kale ma ahe aghniyada unbaa la muqaabalaynaya aghniyada la soo xusay tuukhadu min aghniyaa'ihim baa la yidhi aghniyadii marka waxaa ka soo horjeedo fuqaradii baa ka soo horjeedo midda kale haddana fuqaradii ayagaa aqlab ah asnaafta 8 oo inama sadaqaatu lilfuqaraa'i lagu sheegay oo sakada la siinaayo waxaa ugu badan mujtamaca markii la fiiriyo dadka fuqarada unbaa ugu badan damiirka marka tu'khadu min aghniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waxaa loo celinayaa muslimiinta loo celinayaa waa la yidhi ahlulyaman baa loo celinayaana waa la yidhi marka laba macnaa marka meesha ku jiro haddii muslimiinta loo celiyo horta marka hore waxaa meesha ka dhalanayo gaal in sake la siiyo inaysan bannaaneen muslimiintaas marka ahlulyaman baa loo jeedaa haddii la yidhaahdana waxaa ka dhalanayo in ay mamnuuc tahay sakada in la soo guuriyo beledka ay ka waajibtay laga soo guuriyo oo beled kale loo soo guuriyo inay mamnuuc tahay taana marka meesha way ka dhalanaysaa muslimiinta ahluyaman oo keliya loo jeedaa haddii la yidhaahdo haddii marka muslimiinta meel walba ay joogaan baa loo jeedaa la yidhaahdana way bannaanaanaysaa markaasi in naqli la sameeyo beledka ay ka waajibtay laga soo naqliyo beled kale loo soo naqliyo laakiin waxa weeyaan sida xoog badan beledkaas oo ay sakada ka waajibtay mustaxiqiinta joogaan fuqarada beledkaas joogaan iyo masaakiinta beledkaas joogaan baa la siinaya wixii marka ayaga ka bato ah la soo gudbinayaa bilaada kale oo u dhow loo soo gudbinayo ayb can abi ayuuba radiallahu canhu ana rajulan nin qaala wuxuu yidhi rajulkii lilnabiyi wuxuu u yidhi sala allahu calayhi wasalam akhbirnii ii sheeg bicamalin camal ii sheeg camalkoo yudkhilunii i gelinaayo aljannata jannada i gelinaayo ninbaa wuxuu yidhi abu ayuub ayuu ahaa waa la yidhi ninkaas khaalid ibnu zayd alansaari oo raabiga ahoo xadiidka warinaayo wuxuu yidhi nabi allow waxaad ii sheegtaa camal oo janno i gelinaayo marka camalka mujaradkiisana janno laguma galo ee ilaahay fadligiisaa janno lagu galaa haddii marka qofka camalka saalixa uu la yimaado kadibna ilaahay fadligiisa uu la xidhiirsado sidaa buu qofka jannada ku galaya marka qaala alqowmu qoomkiyaa waxay yidhaahdeen maa lahu yacni muxuu yidhi saasay u jeedaan shaarixa marka hadda wuxuu ku fasiray ey maa sha'nuhu xaalkiisa muxuu yahay ninkan yani muxuu dhahay maa lahu maa sha'nuhu sha'nigiisa muxuu yahay maa sha'nuhu sha'nigiisa muxuu yahay oo muxuu dhahay waqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabiga wuxuu yidhi arabun maa lahu arabun laba icraab buu ku sheegayo in mubtada laga dhigo khabarkana maxduuf waaye la yidhaahdo oo la yidhaahdo lahu rajulkan waxaa u sugnaaday arabun xaajatun
ذنب ليه حينك ذنوين أي ليه لأنه وحو السؤال يا عمل جنة جلنا أي سؤال أرب له وحاوصنا لرجل كان أرب حاجة عظيمة ذنوين باوصنا كدبنا استفهام بولي من النبي عليه الصلاة والسلام وغير ما له ما شأنه شأن يسمحوا يا هينك أو شأن يسي أيوينين يا معايا لي هذا الكوكو هذا الليباء هذا الوين أهو واحد جنة قفك جلنا وين واي معايا لي الجنة جائزة قفك بني آدم كأوهل جائزة وين واي تاسو مركنك السؤال شيء مركن مر معناها ساسوا وحكى لا محتمل إن ماذا ليلة هذا زائد دواء ليلة أو له خبر لقديه أو مركز أربنا مبتدأ لقصة ليلة أرب حاجة له نكان أصبنا ليلة وماذا زائد دواء ليلة يا حاجة أيوني كان ليه محير مركز دهان أو شانه سوا معي أرب أي حاجة ما له رجل كان أصبنا وماذا زائد دواء ليلة مركز النبي قصي عديي عمل كجنة جلنا يا نار تنكفوجينا وحير تعبد الله إله عابد إسا ولا تشرك مشرك إليس به بالله شيئا ومشرك إليس وقلب بكوات معايا لغفك مرة الشرك السماوي إلهي جنة وكحرمي إلهي كلي بد عابد إسا عدنا إلهي لما ودا جنيس لو وتقيم الصلاة صلاة بعد أوجيسا سدح وتؤتي الزكاة زكدين وتجودان إيسا وماشان أصل عنيو وتصل الرحم قرابتنا وحريرين إيسا خصال شاس بواحد تاي خصال مهمة جنبك بينيسو مركا خصلان بهذا الصهر القاضي وتصل الرحم معايا لي ونوي قفيري سائل كحال كيسا سائل كمركا واحد مدة إنه نين قرابة حريرين تيدا عن كفعناه قاضعا للرحم إنه سيدا سو نبي مركا أمر عليه الصلاة والسلام قفوا السؤال ويديو جواب وأصيغ حالتي سكتر جبري سايو نبي السنجري عليه الصلاة والسلام طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا ننهر البادية أتى أعرابي النبي أيوئي صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي وحيري دلني اتصي نبي الله على عمل اتصي إذا عملته عمل كاس هدان سميانا دخلت الجنة جنة أنقال وعجيب عمل ونكسن وهدي أن سميا أن جنة قال اتصي نبي قال وحيري نبي عليه الصلاة والسلام تعبد الله إله عابد إسا لا تشرك حال آذن لو ذا جنين به بالله شيئا آذن لو ذا جنين وتقيم الصلاة صلاة دي بعد أوغيسا صلاة دي المكتوبة أي لفرض وتؤتي الزكاة الزكدين وتجدان إسا زكدي المفروضة أي لفرض وتصوم رمضان بشهر رمضان كان وتصوم إسا حاجك هذا موصن صهر القادم اختصار دلاد الوصول هذه أما الرابقة هالمامي ليلة وصيرة صداص أيسان حاجك وصول هذا القادم طيب مركا وحيالها واجباتك أوكل يقفك هدو سمايو جنة وقلاي ساسواي معنا سنوين هدو قصي درصدانه مرتبة دي سيئي والدرجة دي ساسي كرديس معنا قال وحويري أعرابك والذي معبودك ينقض أرتي نفسي دي بيده قعنتي ساي قصو قنتهي لا أزيد على هذا كم الزيادين انتاس واجبك بان سميناي إلها عابدايا عندنا لما وداجيناي صلاة دي بان أوغايا زكدينا وان بحنايا بشهر رمضان كان وان صومايا فلما ولى مركو دبر جيريي أعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوي من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أبو نبي عليه الصلاة والسلام عجائب من سره قف كيف فرح جلينيس أن ينظر إنه فيريو إلى رجل أو فيريو رجلكم من أهل الجنة كمدا فلينظر هفيريو منك إلى هذا أعرابي كان هفيريو معايا لي
haddii uu daa'imo waxyaabihii la amray inuu sameeyo waajibaadka ah intaa oo keliyuuba janno ku galayaa. waxaa sidoo kale xadiidka ku sugan acraabiga uu nabiga farta ku fiiqay inuu ahlu janno yahay. dadka markaa jannada loo bishaareeyey inay badan yihiinoo keli aysan ahayn alcasharatu almubasharuun inaysan ahayn oo keliya, dad fara badan oo nusuus ay ku soo aroortay baa jiro. acraabigaanaa ka mid ah, xasan iyo xuseen baa ka mid ah, hooyadood baa ka mid ah faatimatu bintu rasuulillaah, ummahaatulmu'miniin baa ka mid ah. marka casharada jannada loo bishaareeyey ayaga dadka kale waxay ooga beddelan yihiin. hal mar buu nabiga janno u wada bishaareeyey oo tobankoodaas fii xadiidin waaxidin ayuu nabiga ku jamciyey calayhi salaatu wasalaam. saas waaya. wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi lamaa tuwufiya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama ilaahay rasuulkiisa markii la oofsaday wa kaana abu bakrin wuxuu ahaa radia allaahu canhu lamaa tuwufiya rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama markii la oofsaday wa kaana abu bakrin wujida abu bakrin abu bakarne la helay. kaanada waa tii taamiyada aheedo oo faacilka qaadanayso isin iyo khabar aan u baahnayn. wa kaana abu bakrin wujida abu bakrin abu bakarna la helay radia allaahu canh oo macnaha khaliifadiisa la helay. wujida khaliifatu abi bakrin bay ka dhigantay, abi bakarne khaliifnimadiisa la helay. oo wa kafara uu kufriyey man uu kufriyey kafara kufriyey manka min alcarabi xaal uu ka ahaaday. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday abu bakarna uu khaliifkii rasuulka naqday oo carabta in badanoo ka mid ahna ay gaaloobeen. ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday in badanoo carabta ka mid ah way gaaloobeen, way ridaabeen oo diinta islaamka ay isaga baxeen. waxaa islaamkooda ku sugnaa wax yar. ahlu maka iyo ahlu madiina iyo ahlu baxreen iyo kooxo kale ayaa maxaan idhahdaa ay islaamka ku hareen. carabta intooda kale way ka baxeen diinta islaamka. mushkilo adag bay ahayd marka oo sayidina abubakar soo wajahday. marka qaarna musaylimatulkadaab bay raaceenoo ahlulyamaama ayay ahaayeenoo qaarna waxa weeyaan zakadii inay bixiyaan bay diideen. annaga diinta ma aanan ka bixin bay yidhaahdeen, laakiin zake ma bixinayno. waxayna ta'wiilsadeen qofkii ilaahay yidhi khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim, nabiyullaahi maxamed uu ahaayeen u duceey qofkii la lahaa, ducadaadana xasilownayay u tahay. abubakar ma ahayn. abubakar marka annaga waxba siin mayna yidhaahdeen oo zakada inay bixiyaan bay iyaguna diideen. arrintaa markay dhacday mushkiladaa sidee buu u wajahay sayidina abubakar? qolada murtadiinta ah ee diinta ka baxeen oo ridaabeen oo si toos bannaan cad u istaageen inuu la dagaalamo ayuu go'aansaday. kadaalika qolada maaniciinta oo zakada diideen inay bixiyaan ayaguna inuu la dagaalamo ayuu go'aansaday. tii buu marka tilmaamaya. faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi radia allaahu canhu kayfa tuqaatilu nnaasa dadka sidee baad ola dagaalamaysaa waqad qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalamana xaal uu yidhi umirtu waxaa lee amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allahu ay ka yidhaahdaan. marka dad laa ilaaha ila allah dhahaya bicillati zakaday diideen miyaad kula dagaalamaysa? faman qaalahaa laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahdo faqad casama minii wuxuu iga reebay maalahu iyo wa nafsahu buu iga reebay ilaa bixaqihi xaqi lislaam, islaamka xaqiisa maaha. wa xisaabuhu mankaa xisaabkiisana cala allaahi cinda allaahi alla dushiisuu ah. xadiidka intaasuu ahaa. waxaa lee amray buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam inaan la dagaalamo dadka ilaa ay laa ilaaha ila allah ka yidhaahdaan. laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahdana wuxuu iga reebay maalkiisa iyo nafsadiisa, inaan maalkiisana aan qaado, nafsadiisana inaan diloon dhiiggiisa daadiyo, labadaba wuu iga manciyey ilaa islaamka xaqiisa maaha. ilaa bixaqihi marka fiqhiga ku jiro ma usan fahmin sayidina cumar radia allaahu canhu. maxaa yeelay ilaa bixaqihi macnaheedu waxa weeyaan qofka asigoo laa ilaaha ila allah dhahaayo
حق الإسلام أنت لغوية شو لدلي كرايا معنا وهدي ودلو نفسد محرمة مثلا ولا الدلا يا أسيغو لا إله إلا الله نهر يعني قصاص درادي قف كلا مسلم بودلي والله قصاص أما محني رأي تارك الصلاة بو نغضيو صلاة بو كتغايا أو وحس درادي بو أو كتغايا حدا بالو دلا يا واتيه هدو جاحد يهين كفرا بالو دلا يا واتيه وحق الإسلام أما زكدي بو منعيي بحنتيدي أسيغو أديك سنة تأويل باطل أديك سنة حدنا ولا لا دغالمايا marka war badan baa ku jiro illa bi xaqi wixii marka u qarsoon oo qalbiga ku qarsoon oo aqeeda ahna ilaah baa kala xisaabtamaayo subhanahu wa ta'ala wa hisabuhu ala allah ta'ala nasasu faqala abu bakr marka wuxuu yiri wallahi aan ku dhaartay la uqatilanna waxaan la dagaalamayaa man farraqa qofkii kala geeyo bayna salaati wa zakati kala geeyo ninkii yiraahdo salaada waajib waa laakiin zakada waajib ma ahan ولا دغالما يا سيدي صلاه واجب وتاي زكاه واجب وتاي فان الزكاه حق المال واي كما ان الصلاه حق البدن سيدي صلاه حق البدن اي وتاي بي زكاه ايضا حق المال اي وتاي والله يان كو دارتay لو منعوني هدي iga manciyaan عناقا وحر هدي iga manciyaan ها كانوا اي ahaan jireen yu'adunaha عناقda kuwa gudanayaan إلى رسول الله أبدنا صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها عناقد الريبيد إذا وقل دغالما يا وحر أي نبي سنجرين هذا يعني جاي منعيان ويرام بك سوق عليه ولا دغالما يا منعيان قل دغالما يا عناق هذا فيري كم معها وحا حولها جاري أسنان الزكاة دادي أي زكية كبودا ين حولها عناق ما أي سنجاري haddana xanaaq haday iga reebaan buu leeyahay meesha marka waxa ku sugan caruurta dhalanayaan oo xoolaha ay dhalayaan xoolkooda ama daawgooda waa xawlul ummahaat waa hooyooyinka dhaleen sanadkii uu soo socday iyo daawgu uu soo socday baa ayaga daawgu ah hadii midalan 40 neef ari oo sanad uu soo socday 40 koodii haday wada dhalaan sanadkiyo wax yar ka dhimanna ay 40 koodii baabaan caruurtii ay soo haraan caruurtii zakada laga bixinaa yaani ayaga daaw cusub oo bilaabanaya daawgii ummahaada baa daaw u ah wa masaladii fuqada ay sheegay jireen marka wallahi law mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallama laqataltuhum ala man'iha faqala umar bawuhi radiyallahu anhu fa wallahi yan ku dhaartay ma huwa شأنه ما أهان إلا أن قد شرح الله إلهي إنه شرحي ما أهان صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال وأشرحي فعرفت أنا وحان أقادي أنه قتال كاسي الحق حق إنه عمر نمرك وقر راعي مسألة سيدنا أبو بكر بوقر راعي مركز سيدا سويانو هدي قلو تأويل باطل أي تأويل سدان وزكذا مبدحيني أي رادان maamulka iyo dawladda marka jirto waxay xaq u leeyihiin qolada inay la dagaalamaan wixii in la dagaalamo aan u baahneen oo huweysneen haday diidaan ayaga kuwaasi waa la ijbaaraya xoog baa looga qaadaya zakada tayib saas way ma wa anhu abi hurayra xaqi waxa laga wari radiyallahu anhu qala abu hurayra wuxuu yiri qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiga wuxuu yiri wuxuu tilmaamaya xadiidkan zakada xoolaha qofka hadii uu san bixinin geela iyo lo'da iyo ariga uquwada ka iimaanaysa ayuu tilmaamaya ta'til ibilu geelu way iimaanayaan buu ala saahibiha ibisha saaxibkeedii ayay u iimaanaysa ala khayri ma kaanat ibisha siday ahaan jirtay sida ugu khayrka badan ayadoo ku sugan geela markii adduunka uu joogay markuu ugu barwaaqada badnaa ugu buurnaa ugu cayilnaa ugu caafimaad badnaa waqtigii adduunyada uu ku soo qaatay sanadkii uu ugu barwaaqada badnaa sidaas oo kale ayadoo ah ibishu ayay qiyaamada imaanaysa way culus tahay markaas Soomaan istaageeda iyo joogsigeeda uu culus kolka ayadoo saas ah ayay ibishu imaanaysa ida waqtigii huwa saaxibka lam yu'di usan bixinin fiiha ibisha dhexdeeda xaqaha usan ka bixinin zakada haduusan ka bixinin
ibishu qiyaamadu way imaanaysaa ayadoo sanadkay ugu barwaaqada badneed siday ahayd ah bay imaanaysaa tadu'u waxay ku soconaysaa saaxibka biakhfaafihaa cagaheeda inuu ugu soconaysaa saaxibkii bay marka ku dul soconaysaa ibishu neef walba asigoo ku dul soconaya taasaa lagu ciqaabayaa macna iyagoo culays miisaan badan xoog badan barwaaqo badan caafimaad badan bay ku dul soconayaan saaxibka neef walba wuu dul maraya وتأتي الغنم غنمتين وإيمانيسا على صاحبها ويكو إيمانيسا أيضا أرق على خير ما كانت غنمتا سيدي إهد سيدي أخير كبدن أيضا كسوغن بإيمانيسا إذا قلتي لم يعد صاحبك فيها غنمتا حقها زكذا وسنك بعين تبدأ ويكو كتبي ويكو سعنيه صاحبك بأدلافها عجية هذه بيقول سعنيسا ويكو تويسا وتنضح ويهرتنيسا هدانه غنمتي صاحبك بقرونها جيسه لنا ويكو هرتنيسا وين كدل سعنه جيسهنا ويكو قراعي ويكو هرتنيسا وقال وحوي لرسولك عليه الصلاة والسلام ومن حقها وحاكمت أبوي وحق الكرم بهذا لقاها الله ها أنعامتا نعم وليد حق هذا وحاكمت أن تحلب على الماء بيها كوكيسا إن لغول للصبح markii la waraabinayo maalinta ay soo aroorayaan biyaha masaakiinta meesha soo xaadirayso in loo liso oo caano la siiyo caanaha ay ka dhirgaan oo ay ka cokonaadaan masaakiinta xaqaas marka waa xaqul karam waaye iyo xaqul muwaasaad waaye iyo makaarimul akhlaaq waaye xaqeeda taasaa ka mid ah qaala wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ولا يأتي أحدكم أحدكين ما إيمانايو وخبر أو بمعنى النهي أهو يسن إيمان يوم القيامة قيامة مالين تذا أحدكين يسن إيمان بالشات ناف أري يسن لا إيمان يحمل حال وحنبارا يا أحد كها شاتلا على رقبته قرتي سوء وحنبارا لها شاتلا حال وأسرنا يعار يعني عي صوت كأرجع يعار وهم جعار ariga uu ciyaaya baa leeyahay marka ahadkiin maalinta qiyaamo uu saneef ari la imaanin asagoo dhabarka ku sido ayadoo marka neefka arine uu ciyaayo oo uu qeelinayo uu soodeenayo oo fa yaqul ahadki uu yiraahdo ya muhammadu ii shafaaco ii gargaaro icaabi fa aqula anigana aan dhaho la amliku laka min allahi shay'an ilaahay xaqiisa waxba kaaga ma hananaya aan قد بلغت أنيجا وان جارسيي أو أديجا وان كسر جارسيي إلهي حكم كيس وان كسر جارسيي أنا تعدي ليس بمعنى يسندعم ها أيضا مركب محل هذاي أريجا وهرتنا يو ونقدر صعنا يو بوهدنا أريجا حنبار صنا يا هدنا ولا يأتي بعير لما إيمانا يا أحد يسن لا إيمان بالوجهه يحمل حال وحنبارا يهود بعيرك على رقبته قرتي سوق وحنبارا أحدكين ناف جيلا ها قيامها يسن لا إيمان أصيله قرتك وحنبارا له بعير كان حال وصلنا للرغاء أولل يعني الصوت كجيلا يا وحال إلى الرغاء ها أولل وصلنا أو فيقول أويراد يا محمد فأقول أنيجنا أنه لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت أمره تاني يسندعن أنت يقورتاي dadka xoolalayda ee geela dhaqato ama ariga dhaqato lo'dana waa la mid ah xoolaha zakada ha ka bixiyaan hadii kale isla xoolihii baa qiyaamaha lagu cadaabaya macna tayib waxay xambaaraan iyo wax ku dul socdo iyo wax hirtiye iyo qaabkaas loogu cadaabaya macna tayib وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي كان مركز سجود بوها الله مالك أن زكذا لقى بحنين لعق هالنقضو أما دلق بيرها كسوبها هالنقضو أما النعموليدا هالنقضو السعام وكان وها الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوي من آتاه الله قفك إلهي أوسيي مالا ما نعودونها maal ay zaka ka waajibayso qofkii ilaahay uu siiyay ee maalka lacag ha noqdo ama maxan iraadahay nicmoolay ha noqoto ama zuruuc iyo thimar beeraha ka baxeen ha noqotee qofkii ilaahay maal uu siiyay oo falam yuaddi an gudanin manka zakatahu maalka zakadiisa aan gudanino la jacla daraadeed aan zakada ooga bixinin
مثل له من كاس ماله مالكي سا الله صورينا يا قيامة مكيلك يوم القيامة با الله صورينا شجاعا با الله صورينا يا بحل أما أبيصو ها ولبا أبيصو ذكرك أو لبك با شجاع الله استعماله أبيصو أي مالكي سا الله صورينا شجاع أقرع أو محن إلى هذاي أو بدار له أو مدحي سمركي لفيريو سنت كبضتي دراده sida qof bidaar qaba amal shujaaca soo له zabibataani laba maxan iraahday laba diilamood macna laba astaan oo maxan iraahday innaha korkooda kule zabibataanka waxa weeyaan waa laba astaan oo madmadoowan oo innaha korkooda uu ku leeyahay marka abeysadu ama bahalku aad bay u foolxun tahay markii innaha korkiisa astaamaha madmadoow ay ku leedahay bidaarna ay leedahay oo kale ya marka abayso noocaasoo bidaar laho laba diilamoodna leh baa maalkiisa lagu suureynaya yudawaquhu waa loo qoorgelinaya yudawaquhu manki yudawaqu waa la qoorgelinaya shujaacihu manki yaa loo qoorgelinaya yowma alqiyaamati qiyaamada maalinta qoortiyaa marka loogu duubayaa bahalkii ثم يأخذ قبانا شجاعي بلهزمتيه يعني وحوجه إذا بشدقيه لبدي سدان أيو قبانا ثم يقول مركزا وحولها يا شجاعي أنا مالك أنا كنزك أنا مالك أغان أهي أنا كنزك أغان أهي مالك أديك آتكي ديسي وآد زكيدة كبدا عمو يسيان أهي بولها يا مركز صورعنا يا بحالك وينك بدان مركز صورعنا يا سيدا سامرك لغو عذابا ثم تلاوح أغريي رسولك عليه الصلاة والسلام ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة آيات صومك كترجمة حديثك أسوق هذه معنيه كوا بخيلا يعني وحا إلهي فضلك سحقي وكسي يسملين waxa ay bakhiilayaan inuu khayr u yahay shar u yahay waxa ay bakhiilayaan qiyaamaha waa loo qoorgelinayaa asigoo bahal laga soo dhigay baa qoorta loo gelinayaa maalkii baa marka bahal laga soo dhigayaa markaas uu la hadlayaa ana maaluka ana kanzuka ayuu leeyahay markaas uu bilaabayaa inuu cuno maxaan iraahday labada daamood buu ka bilaabayaa عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحوي وحوت الماما يا جيلا iyo maxaan iraahday lacagaha fidlada ah iyo dalaga beeraha ka baxa nisaabka ay zakada ka waajibayso tilmaamaya laysa fima duna 5 awaqin oo qiyaal shan ah wax ka yar dhixdood sadaqatun zakama ah أواق وجمع أوقية أوقية وأفرتن درهم كلك شملوا من أفرتن لو بقول درهم لعك يرزك كما واجب سوايا نصابك أو فضة ولو بقول درهم هل كان نصابك ذهب كان أويا هي 20 مثقال لباتن دينار أويا أما سديتن إيا شن جران أو ذهب طيب وليس فيما دون 5 ذود جيل شنها شن جيل وحكير دحدينه صدقة زكاة ما أهانه نصابك ugu horeeyo oo geelana waa shan geela markuu shan gaaray zakka ka waajibta neef ariyaana laga bixinaya طيب وليس فيما دون 5 أوسق دبر ريال أو شن سكودودا دحدينه صدقة ما أوسق ها جمع وسط واي وسط غنا 60 ساعة لحدا سوس واي مركا شمل من لحدا و 300 سوس وحكير هذه قفك وبيرها كهلو زكاه كما واجبايو دلقا بيرها اوغا سو غاي او هلاي يعني نصابك waxa weeyaan 300 سوس markuu helo ayuu ka bixinaya 30 سوس buu ka bixinaya طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري من تصدق قفكي صدقية بعدل تمرة
timir qiimaheeda qofkii sadaqeeyo min kasbina ka sadaqeeyo kasabkoo dayibin wanaagsan hal timir wax ku qiimaa qofkii sadaqeeyo shaqo xalaal ahne ka sadaqeeyo walaa yaqbalu llaahu ilaahay ma aqbalaaye ila tayiba wax wanaagsan maaha maalka aad sadaqada ka bixinaysid waxaa shardi ah inuu yahay maal xalaal maalka maal xaaraam hadduu yahay sadaqada aad ka bixinaysid hal bacaad lagu lisay waayo ilaahay ma aqbalaayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay in allaha tacaala tayibun waayo laa yaqbalu ilaa tayiba wax wanaagsan buu ilaahay aqbalayaa waxaan wanaagsanayna ilaahay ma aqbalo وإن الله إلهي يتقبل إلهي وأقبلايا ها صدقة بيمينه إلهي مدكتي سوق أقبلايا خطابي باوحو يري يمين هذا لصو هذا القارئ معايا يمين تا عرفك تحدي وحلو استعماله وحي الشرف له با يمين تا لو استعماله هلكا وحن شرف لهن بدح الله استعماله مركز الشرف له بو إلهي وأقبلايا بالو جيدا ثم يربي إلهي وبربارنايا ها صدقة ها لصاحبه بو إلهي وبربارنايا لصاحبها سما صدقة صاحب كذو إلهي وبربارنايا أو أجركي أي أسي لابلابا يا إلهي سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم أحد كين سدو وبربارنايا فلوه درمانكي سوى أحد كين درمانكي سدو وبربارنايا oo faraska waladkiisa darmaan leeyahay sidoo u barbaarinaayo kale ayuu ilaahay sadaqada u barbaarinaayo uu ku bixinaya uu badinaya hatta takuuna ilaa ay ka ahaato sadaqadaas ilaa ay ka ahaato ama tamradaas meeshii loo celiyo mithla aljabal jabal mathalki ilaa ay ka ahaato sadaqadii hal timir la mid ahayd buu ilaahay barbaarinaya markaas wuxuu gaarsiinaya buur weyn badan oo kale ayuu ilaahay gaarsiinaya markaasay miisaanka ay cuslaynaysaa macnaha marka sadaqadu ayadoo yaraan ma gasho wax yar hadaad baxsato xataa kasab xalaalna aad ka baxsato ilaahay subxaanahu wa tacaala si sharaf leh buu sadaqada u aqbalaya asigaana ku bixinayo oo badinaya hal timir hadday tahay qiyaamaha waxaad arki doontaa ayadoo jabal la mid ah sadaqada adiga aad la baxday marka wax weyn weeya can xaarithata waxaa laga wariyay xaarithadoo ibni wahabin رضي الله عنه قال حارثة وحوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي يان مقلي يقول حال أسقر لها تصدقوا صدق الله بحا فإنه إن الحال والشأن يأتي وحا إيمانا يا عليكم دشنا زمان زمن باكو إيمانا يمشي الرجل كي واسعنا يا زمن كاسمكي لقى بصدقته بولا صعنايا فلا يجد رجل كهلي مايو من يقبلها صدقة قفك أقبل يهلي مايو مسكين صدقة أوصية بهلي مايو زمن كاسال لقاري انت الله أركا يودد مساكين وتوصنايان أما استاغايان وحنلك هالميادهايان dadka waxay sojaanis bay u tahay ay kaga faa'iideystaan waxa imaan doonto zaman oo cid sadaqa la siiyaba aan la helaynin يمشي الرجل بصدقته بولا وريغايا وحو روا مسكين صدقه اوصيو فلا يجد من يقبلها صدقه قفك اقبلنا هلي ماي قفل بو خليه وا اسكو فيلانahay aniga ma mudni qof hada in sadaqa la siiyo mudan mi يقول الرجل رجلكي وحو dhahaya لو جئت هدي aad la imaan lahayd biha sadaqadan bil amsi shalay hadaad la imaan lahayd laqabiltuha wa aqbal laha laakiin maanta aniga ba qani aho ciidan wax si aniga ba u baahan fa amal yawma maanta فلا حاجة باهي لي أنا بها صدقة إيمان أهانين مركب وحويان حديث وحا لقى قادنا يا بورين أو صدقة اللي سكو بورينا إيو إن لو دك صدقة إن لو دك طيب فرصتنا لقى فائدة فقر جينا إن لقى بحي دوننا حديث جوا بشارين آية أو نوال بإسكو في الناشئ وقاراي نوال بقى مسلمين تكمد إسكو في الناشئ وقاراي marka arintan marka inay dhacday iyo in hadda kadib ay dhici doonto labadaba waa la sheegaa xilligii oo maxaan yiraahdaa Umar ibn Abdul Aziz bay dhacday baa la yiraahdaayo oo waxa la waayay dad masaakiin oo sadaqa la siiyo baa la waayay muslimiinta maalkii baaba ka batayo ilaahay subhanahu wa ta'ala faqriga intuu ka bixiyay baa waxa la waayay dad xoolo la siiyo masaakiin markaas la yiri
dadka deynta lagu leeyahay hala siiyo xoolaha deynta ha isaga bixiyaan dadkii haddii deyntii ay iska bixiyeen haddana waxaa la yidhi dadka addoommada ah oo suuqyada la keeno oo la iibinayo ha lagu iibiyo maalka oo ha lagu xoreeyo si la yeelaa maalkii la waayay xilligii alimaamu alcaadil cumar ibni cabdilcasiis marka waxaana suurowda arrintaas bilow inay aheedayo weliba ay dhiman tahayoo qiyaamu saaca intaan la gaarin muslimiinta dhammaantood dowladaha islaamiga inay agniyo naqan doonaano oo muslimiinta dhexdooda laga waayi doono axad faqiir ah oo sadaqa la siiyo kolka taas jaanis ma aha dadka wax haysto waxaa jaanis u ah masaakiinta iyo fuqarada intay joogaan ay wax gashtaan qiyaamada ay wax u hormarsadaan saas waay macna marka zamanka intaan la gaarin ha laga faa'iideysto وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحيري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحيري لا تقوم الساعة ساعة قوم ميسو حتى يكثر إلى أوبة فيكم دحدينا المال مالك أوكبت ساعة قيام دحي ميسو إلى دحدينا مالك أوكبت أو فيفيض مالك أوداضه حتى يهم إلى أوكمرجيو رب المال من أوكمرجيو qofkii maalka iska lahaa man uu murjiyo mankoo yaqbalu aqbalaayo manka sadaqatahu ka aqbalaayo rabbal maalki sadaqadiisa ka aqbalaayo wuxuu ka fikirayaa qofka saaxibul maalka ah qofkuu sadaqada siin lahaa oo sadaqada ka qaadan lahaa wa hatta yacridahu ha maalka ilaa uu ka bandhigo rabbul maalki oo fa yaquul alladhi ki uu yiraahdo yacridu rabbul maalka hu maalka calayhi alladhiga uu bandhigayo لا حاجة لا أرب لي لا حاجة لي أنا قدن إيقوم السجن عن المال كان ما ومبهني مال كان ومبهني إلى أوكيلا تاس إلى أي كدعوه ساعد قيام الدين يسون بغير عليه الصلاة والسلام وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عدي وحيري كنت وحن عدي بن حاتم الضائي سنة سجالات أما سنة كتوانات بوصو إسلامي باليرة مركا واكو aad buuna maxan iraada 60 sano kadib uuna geeriyooday baa la yiraahdaa aad bay da'diisa u weynaatayo 120 sano ayuu gaaray baa la yiraahdaa waxa kale la yiraahdaa 180 buu gaarayna waa la yiraahdaa Adi ibn Hatim ad-Da'i waa ninkii macruufka ah aabihiisana deeqsiga ahaa asigana deeqsiga ah qaala wuxuu yiri Adi markuu soo islaamay buu qisadan la kulmay kuntu waxaan ahaa cinda rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam ilaahi rasuulkiisa agtiibaan ah فجاءه رسولك وحاوي مادين رجلان لبن باوي مادين أنا ورسولك لجوه عليه الصلاة والسلام باللبن أي رسولك وي مادين أحدهما لبدان متكوت يشكو وحوك الشيغانايا العيلة فقر بوك الشيغانايا بفتح العين أي الفقر فقر بوك الشيغانايا رسول الله فقر يعني إني بيوير والآخر متك كلنا يشكو وحوك الشيغانايا قطع السبيل ودada goynteedu ka sheeganaya niman mooriyaan ah oo burcad ah ee jidka gala ee dadka dhiba ee maalka qaata ee dila cabsi geliya awoodna leh niman noocaas oo ninkaan isagana ka sheeganaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيره أما قطع السبيل ودada goynteeda فإنه إن الحال والشأن أمنك إيمان دون نبيك كبر بحنايا لا يأتي ما إيمانا عليك أديك دشادا إلا قليل من زمن يرمى هني حتى تخرج العير سفريد إلى أي كبحان إلى مكة تنا أي أبحان بغير خفير مدمجنجلنا يلا أنا أي بحان وحير أكادي بويري وحير كدب وحابعي دونتو magaalada Madiino ilaa magaalada Makka masaafada u dhaxaysa ilaa 500 kilomitir waa marka ciirtii ka baxdo Madiino Makka ay aadaysa bighayri khafiir mid magangelinaya la'aan khafiirka waxa la yiraahdaa dadka qabaa'isha dadka ka magangeliyo mooryaanta qabaa'isha ay ka dhasheen qofka ay aqoonsanayaan oo ay garanayaan oo laga heebeysanayo oo hadalkiisana uu soconayo با خفير لي يراهد هدو يراهد عيرتاس انيغا كمسؤول ان لو غعان دافين عيرتاس حتى موريانتا اي كهبيسنيس معنا طيب قفك نوعا صا خفير لي يراهد بغير خفير بعيرتا سعنيس واما العائله وحلانتا فقريغنا فقريغا iyo waxlaanta hada ka sheeganaysa ninka kale la hadlaaya fa inna saa'ata taas waa dhankii amniga
فإن الساعة ساعة لا تقوم ساعة قوم مش حتى يطوف أحدكم أحدكين إلى أولوريك سدو بصدقتي صدقتي سأولوريك سدو أحدكين صدقتي سأولوريك سنايا لا يجد أحد كهلي مايو من هلي مايو يقبل أقبل يومن كها صدقة منه أحد كأقبل يهلي مايو مسكين أما فقير صدقة كقاطوسا هلي نم ثم لا يقفن أحدكم أحدكين ويستاجع يا بين يدي الله يستاجع إلهي سبحانه وتعالى هرتبو استاجع يا أحدكين قيامه تلماما ليس بينه أحد كأي وبينه بين الله حجاب أصنعه أيضا أسقي إلهين حجاب أصنعه وعلى سبيل التمثيل واي إلهي سبحانه وتعالى شيء مكوبه حجابنا إلهي ما حجابه طيب كلك وحويان ويسكى على سبيل التمثيل أحد كين بين يدي الله يستاغى ليس بينه وبين الله حجاب إيا ولا ترجمان مفسر أصنعها هذا العلي ها أما الترجمان ليرا تأذى إن لك رجع إيا إن لك قلو جيم كان لك قلو ترجمان أما ترجمان لوضع حركة بيا أيضا أسيق ربنا مفسر أصنعه حين مد هذا الكوف السر ترجمانكو يترجم في السرايا له أحد كوف السرايا أصنعه حين أحد والباء أسيق إلهي أو عدنا أصنعه حين بيسيطوس اسكولا الله ثم لا يقولن إلهي وحودها يا أو وحودها يا له أحد كوحودها يا أما أنت قيام ألم أوتك سوكما سينين أنا مالا مال سوكما سينين سؤال أحد كلا بيدنا فلا يقولن أحد كوحودها يا أو وحودها يا بلا إن هذا السينين كأله يا رب واد السماء ثم لا يقولن هدانا ربك وحودها يا ألم أرسل سوكوما سودرين إليك أديك رسول سوكوما سودرين وكو عديو وحوال بحقيقة ذا السيدة أيدي فيقولن أحد كوحودها يا بلاء إن هذا إيسودرين كألي ود إيسودرت يا رب فينظر أحد كوحو فيرنا يا عن يمينه دنكي سميدك بو فيرنا يا فلا يرى أرك مايو إلا النار معها ثم ينظر أحد كعن شماله دنكي سميدك بو فيرنا يا فلا يرى أرك مايو إلا النار معها فليتقين أحدكم أحدكين هكذا شاطو النار ولو بشق تمرة ولو بصدقة شق تمرة تمر جاحدة صدقة إذا بها يسقى شاطو أحدكين نار هكذا شاطو نار باجرتو وحيالها النار تلوغا شاطو وحاكمد صدقة أو للبح وددك مستحقين تي مساكين تي وفقراء تي محتاجين تو وحلصي أن لا يريسنين حتى صدقة هل تمر جاحدة بها هذا وحلا بحنا إلهي عردي سيد مسا صدقة نار تلوغا شاطا أحدكين نار هكذا شاطو ولو تمر جاحدة صدقة ولا بحيبها أوغا شاطا فإن لم يجد أحد كهدوسن هيلين وحو صدقة يبها هدوسن هيلين ولو تمر جاحدة بها الله كدغه فبكلمة كلمة نار تها أوغا شاطو كلمة صو طيبة أو ونكسن أو قفك سائل كأوكونهاي قلبي سنة وكقضي بيلاي أو كدغان أسيغو وحسيي سي كلمة أيوغو نغطو مد نار كبدبادين يسوكال طيب وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوي لا يأتين وحا إيمان دونه أو إيمان دونه على الناس دتك دشوا ذا زمن باكو إيمان دونه زمن كو يطوف رجل كأوريك سنة فيه زمن بالصدقة صدقة أولى وريك سنة صدقة من الذهب كأهات ذهب بودتك لوريك سنة عدو ذهب كسيور هذين ثم لا يجد هلي مايو أحد ثم لا يجد رجل أحدا هلي مايو أحد كو يأخذ قادنا يا صدقة منه رجل كقادنا يا هدنا هلي مايو زمن نوع صادقة كو إيمان دونه ويرى الرجل ها رجل كي والله أركايا رجل كو الواحد أو مدأ هل يتبعه حال أي راعيا 40 امرأة أفرت النجنة أي راعيا ها يلذنا ويمجنجرايا دمر كاس به رجل كينا مجنجرايا
maxaa dhacay min qillati rijaali ragga yaraashihiisa daraaddii bay u megangalayaan iyo wa katrati nisaa'i dumarka badnaantooda daraaddeed waxaa la arki doonaa rajul waaxid ah oo ay ku feelan yihiin oo raacayaan 40 naag oo asiga yacni megangalayaan nin dhanba asiga maxaan idhaahdaa ay ka megangalayaan oo kale macnaha wuu wada qabaa ma aha macnaha ee waxa weeyaan raggii intay yaraadeen ay dumarka bateen baa waxaa suuroodo hal nin intaasoo naag inay ku tacalluqaan oo asiga ay wada sheeganayaan miduu dhalay iyo mid la dhalatay iyo miduu adeer u yahay iyo miduu abti u yahay iyo oo midoo qaraabo baciida ah saasoo kale mid qaraabo qariiba ah macnaha raggii intay yaraadaan baa halka nin waxaa sheeganayaan oo asiga maamulkiisa hoos imaanayaanoo oo ninnimaba maxaan idhaahdaa asigu yacni ay garab ooga dhiganayaan 40 naag min qillati rijaali wa katrati nisaa marka yaraashahaas ay raggu yaraanayaan bisababi katrati alxuruub waalqitaal bay ku yaraanayaan dagaalada badashadooda sababtii oo dhici doonaa fii aakhiri zamaan dumarkana markaa sidaasay ku badanayaan raggana sidaasay ku yaraanayaan ama waxaa badanaayo dhalashada dumarkaa badanayaan wiilasha dhalashadoodana way yaraanayaan sidaasaa markaa ay raggu ku yaraanayaan dumarkana ay ku badanayaan ayib sidaasaa dhici doonto macnaha aakhir zamaan ragga way yaraanayaan dumarkana way badanayaan عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أبو موسى وحويري أبي مسعود عنه عن أبي مسعود الأنصاري وعقبة بن عمرو بن ثعلب ويانه الأنصاري البدري رضي الله عنه قال أبو مسعود وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها إذا أمرنا بالصدقة مركونا أمره بري هرو كشكينا حلق النبي ظروف تلوجري حلقا وتلمامايا rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa markuu sadaqana amro sadaqa la baxa uuna yidhaahdo sadaqada fadaa'isheedu uu nagala hadlo indalaqa axadunaa axadkayni mid tagaaya ayuu ila suuqi suuqa tagaaya fayuxaamilu wuu soo xambaaranaya fayuxaamilu wuu soo xamaalanaya shaqaysanaya suuquu ka soo shaqaynaya marxaban fayusiibu wuxuu asiibaayay almudda mud hal shood oo badar ah uu soo shaqaynayaa macnaha kadibna mudkaas uu soo shaqeeyey uu soo xamaalay buu sadaqaynayaa yacni wax la'aanta jirtay iyo sida sadaqada loo jeclaa nin asigaba faqiira aan waxba haysanin baa wuxuu jeclaysanayaa inuu sadaqa la baxo si uu sadaqa u bixiyo wuu soo xamaalaya hal koombo oo badar buu soo shaqaynayaa mudkii buu marka siinayaa qof asiga ka sii liita oo matalan ma aan shaqaysan karin oo kale ayuu mudka siinayaa dadkii sidaa ahaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam wa inna libacdihim qaarkood dadkii sidaa ahaa qaarkood waxaa u sugnaaday alyawma maanta ل100,000 100,000 oo lacagta diinaarka ay haystaan buu yidhi dadkii beriga nabiga sidaa ah marka zamankii Umar ibn Abdul Aziz iyo xilligaa buu tilmaamaya isbedelka dhacay buu tilmaamaya عن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري عائشة دخلت امرأة ناقبة صوت الشيء امرأة سو معها امرأة معها ابنتان لبقبر أيهن ابنتان كلها امرأة أصل معين ناق أو أي للصعدان لبقبر أي أيضا الشيء باوحي أصل قالين أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل حال أي سؤال يسو امرأة أي صوت الشيء مسكين بي هذا وحبي السؤال الناس فلم تجد امرأة عندي أنا أكتب شيئا وحما يسكه شيء غير تمرة هل تمر غير فيها هل تمر باقولي تالي وحكى قولي ما أقول فأعطيتها تمردي بانسيي إياها امرأة يانسيي فقسمت امرأتها تمردي بين ابنتيها لبدا إذا قبر بين كورين وكوكيبسي ولم تأكل امرأة منها تمرد حق إذا وحما يسكه هل تمر بان أنا سيء حش تمرنا لبده إذا قبضات بي أكلت شيء كلا سيء أيضا وحوما يسنكع عن البيت ثم قامت امرأتي وإسكا استاكتي هوي وحي إهد مركا نحريس بدن معايا لإلهي سبحانه وتعالى جعل الله في قلوب الأمهات الرحمة هويوين كقلوب توضا نحريس آد أبلا ربو إلهي نحدقي سبحانه وتعالى صادرات مركا حبد التمر او لسيي او لو صدقيسay way u qaybisay labadeeda gabdhood ayadana waxa ma aysan ka cunin
ثم قامت امرأتي ويستاكتي فخرجت امرأتي ويبحضي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم صوغلي علينا أنه صوغلي أمنا عائشة شكينيش فأخبرته نبي بان أشيغي امرأة الشأن جيدي يا إعجائب جليي نحريس سيدي أي إعجائب جلي سيمركا صار نبي أشيغي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحيري من ابتلي يغفك لا امتحامه من هذه البنات قبلها حقود بالشيء لوغ امتحامه كنا وحي أهانا يا بنات له منكاس سترا حجاب بيئو أهانا من النار حقي بي حجاب أوغا أهانا قفك إلهي سبحانه وتعالى قبله كو أرزقه قبلها مركا كورنتو دي إيو بربارين تودي إيو إذي بدو دي وناجية ونويلش أوغا إيحان قبلها وحي نقانايان حجاب بينات أوغو نقانايان معايا إلى قبلها آد لو ما جعله سيدا الويلش لو جعل يهي وكلا لو ما جعله وبالتالي هدنا ويكتب بدنه الويلش حتى حق كورنتا مركي لغا فيريو يعني حاجاتو دي iyo labiskoodi iyo way ka dib badan yihiin wayna ka qarash badan yihiin wiilash ayagoon la jacleen bay hadana qarash badan yihiin qofkii marka muujiyo maxabadii waalidnimada muujiyo oo qurxiyo korintoodii iyo maamulkoodii qurxiyo wiilashana aan ooga eexan oo u cadaalad falo xijaab bay naarta ooga naqanay marka way ka ajir badan yihiin gabdhaha wiilasha korintoodii saas way maan an abi hurayra radiyallahu anhu qala abu hurayra wuxuu yiri جاء رجل نبا يمد إلى النبي أيو يمد صلى الله عليه وسلم فقال رجل كي وحوير يا رسول الله أي الصدقة صدقة تبا أعظم وينا شبدا أجرا حق أجر سؤال مهم بويتي نكاس أبو درب أها والا يري غير كي سوء أنا والا صدقة تبا أبو أجر وين بوير النبي الله قال وحوير رسولك عليه الصلاة والسلام أن تصدق إن تصدقيسته والحال أنت أدينا صحيح آتاي مت فيو صحيح آتاي بخيل تخشى حال أتكبقيسد الفقر وحلان وتأمل حال أديذيلين يسد على الغنى هذون تنمو بل أفير حديث كمعنيس صدقوا وحا أبوين حاجة أجرك صدقة أطلب حدا يهرت عليه وعافمات طبعا adigoo ay kugu jirto laxjacladu waxay qofka ku badan tahay markuu caafimaad qabo adigoo marka ka baqaayo wax la'aan yadadiilinaya hadana hodonnimo iyo tanaadnimo laana qofka bani aadamka fi xaali sihhatihi markuu caafimaad qabo waxa ka dhax guuxayo adduunyo jecel baa ka dhax guuxayo waxa ka dhax guuxayso inuu faqriga la dagaalamo mustaqbal iyo future qurux badan inuu wajaho wax badan inuu sameeyaa ka dhax guuxayso qofka markuu caafimaad qabo xilligaas marka oo jaceelka adduunyada uu kugu badan yahay waxyaalaha faqriga la dagaalankii iyo yadadiilka qinaha aad yadadiilinaysid ay kugu badan yihiin xilligaas sadaqada aad la baxday baa ugu ajar badan marka adigu xanuunsato oo aad sariir korto oo aad dhimasho ka baqaysid xilliga waxa ka yaraanayo damacii iyo himiladii iyo hankii adiga adduunyada aad kale taa marka waxay keenaysaa nooc deeqsinimo ay keenaysaa xilliga marka adiga aad xanuunsatay oo adduunyada wax badan ba aad ka rajo dhigtay sadaqada aad la baaxaysid waxa ka ajar badan xilliga aad saxiix tahay oo suxiga uu kugu badan yahay oo la dagaalanka faqriga iyo yadadiilinta tanaadnimada aad yadadiilinaysid xilliga uu kugu badan yahay waxaad baxsatay baa ugu ajar badan buu taabu marka si bayaaninaya wuxuu yiri wala tumhil adiga ha u kaadini oo dib ha u dhigin sadaqada bixinteed hatta ida balagat ruuxda ila ay ka soo gaarto al-hulquma hunguriga ila ruuxda hunguriga ay ka soo gaarto dhunta ay ka soo gaarto waako ha u dib dhigin sadaqada bixinteed oo qulta marka aad dhahdo لفلان هبل بو أصغنادي كذا وحاس ودردار ميسا ولفلان هبل بو أصغنادي كذا وحاس وقد كان والحال قد كان كذاجنا لفلان أوها ضيبا هبل وحاس هقاته هبل وحاس هقاته هبل وحاس هقاته ويل الشادي عرور تادي يا قبلها دي بعد وحكلا سينيسا قبلها دي وحكلا سينيسا وحاس آد مركز آد كدر دار من سنة وما باهنا إن آد كدر دارنت
dadka hala sii aadhaysid waaba yeelanayaan oo sharcigaaba siinayaan xataa saddex meel markii loo dhigo maalkaaga hal meel oo kaliya lagu ogol yahay inaad ku tasarrufto laba meel laguma ogola inaad ku tasarrufto waa laga xayiray allahumma inay waratada ogolaadaan ma ahane marka hala sugin xilliga maalkaaga ma aha midka adiga aad ka tagtay oo laga dhaxlay ma aha ee waa midka adiga intaad nooshahay aad baxsatay oo aakhiradaada aad u baxsatay kaasa adiga ku huban oo meel fiican ku yaalo عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسسكي سكاركوت قلنا وحي إرادين للنبي صلى الله عليه وسلم وحي إرادين أينا متكينابا أسرع الدجيد بدن بك أديك لحوقا حق هليلت أنك هدان حاسس كاغا حي نبي الله زوجات كاغا زوجada oo ugu degdegida badan inay adiga ku soo haleesho waatay bimaana marka dhimato zawjaadkaaga zawjada ugu horeyso soo dhimanayso oo adiga ku soo haleelayso waa zawjadee su'aashaas ay weydiiyeen ayuna midayni waatay asra'u degdegid badan bika adiga qabidaada kugu degdegida badan luxuqan xaga haleelida midda ugu horeyso adiga ku soo haleelayso waatay qaala markaas wuxuu yiri rasuulka kaleey salaatu wasalaam أطول كنا مدة إذن كوجو ديراشة بدن يدن حاجة جعنت بقول مدة إذن كوجو جعنت دير باوحين غريسة مدة أبوه رئيسه أريجي إسوه هلاليس جعن ديري ده أمريكا سيجو وقوة ذي مجاز بقوة ذي أيجنا حقيقي كوقاتين يعني قفت أبوه صدقة بدن بو أصيل وجهي قفت أبوه واحد حنت بدن وأبوه صدقة بدن باوحين غريسة قفت أبوه رئيسه أريجي إسوه هلاليس معناها اسمرك أو مجازك وأسيق وجهي أيجنا معناها حقيقي كو حنبارينه فأخذوه مركا وحي سوقبتين قصبة قصب أي سوقبتين قصبة يدرعونها قصبة أي كل رمين أيان أو قعمه أي كل رمين أيان كو عبير أيان أي كو قياس أيان سي أيوه قالان مدى وقوق عن تدير فكانت سودة بنت الزمعة وحي نقتي أطولهن midda ugu dheeraashada badan zawjaadka yadan xaga gacanta sawda naag dheer oo xoog badan bay ahayd ogtahay ayada marka ugu gacan dheeraatay ayadana ma naqarin marka naagtii ugu horeysay oo dhimatay ayada ma naqan midda ugu horeysay oo dhimatay zawjaadka nabiga kaleey salaatu wasalaam waxay naqatay Zaynab bint Jahsh bay naqatay tayeb marka taasa cadaysay adwalu kunna yadan markuu nabiga lahaa معناها مجاز كأنه أجيل محايا لزينبها أقول صدقة بدنت زوجات كنبي عليه الصلاة والسلام مركي لفيري طيب فعلمنا مركا وحان أغاني بعد مركا كذبا وحان أغاني وواقع ونؤغيسيي أنما كانت طول يدها يدي إذا دير كذا الصدقة إني أهد الصدقة واسمه كان طول وخبر كان أو مقدمة كانت الصدقة وحي أهد طول يدها صدقة يا وحي أهد gacanteeda dhirirkeeda taasan ogaanayo marhaban waxaana marka taa cadeeyay Zaynaba waxay naqatay mid ugu horeyso geeriyootay oo Sawda way ka geeri dambeysay oo kale marhaban Zaynabana marka waa laga warqabayo inay ahayd qof aad u sadaqa badan wa kaanad marka waxay ahayd Zaynabada asra'ana mid noogu degdegida badan luxuuqan xaga haleelida bihi nabiga la haleelo maxay ku naqatay wa kaanad Zaynaba waxay ahayd tuhibbu sadaqada tijcal bay ahayd sadaqada mid jacalo aad wax u baxsato ayay ahayd tayib marka sadaqada marka mudnaan weyn bay leedahay an abi hurayra hada wa billahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam